barasabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintii Baro ayaa saaka soo kormeeray qaar ka mid ah xarumaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha ee saaka ka bilaabatay gobolka Awdal. barasabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalintii Baro ayaa indhaha soo saaray sida ay shaqadu uga socoto xarumahaasi, isagoo markaasi bulshada goobtaasi ku sugan ugu baaqayay in isdiiwaangeliyada markaasina ay qaataan kaarka codbixinta oo muwaadin kasta oo Somaliland uu xaq u leeyahay inuu qaato. kadib markuu kormeerkaasi soo dhamaaday oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa waxay yiraahdeen hawshaas diiwaangelintu si wanaagsan bay saaka lixdu bilaabantay ilaa haddana si wanaagsan bay u socotaa. waxaanu filaynaa saa inoogu bilaabantay in noogu dhamaanto insha Allah. waxaase aanu taliyar siinaynaa oo aad moodo qabowga iyo dhaxantay waxay tay mooyaan inay goor hore soo kacaynin. dad 10 kuma mar la isku soo wada toosaya. dadka waxaan leenahay chance baynu haysanaa farxishaa inuu afarta ka faa'iideynina la doonayaa. waa balse maxlimadan hore u soo kacno si kuyugeenu u fududaado. waa ogtiino kombiyuutarada soo dhamar reserverka ku dhacayaan kulli culays uu iska yar imanaya wax dhibaato kale ma jiraan. maan amniga goobaha gobolka Awdal ee ay ka socoto diiwaangelintu dhammaantood waxay ku jiraan 100% nabadgelyo. ilaa hadda saacada aan joogno meel qayla ama dhibaato ay ka soo yeedhay ma jirto. waxaa saakootayno sharaf dhamaanteen in ay noo bilaabatay diiwaangelintii codbixiyaasha. runtii gobolo lagu bilaabay oo gobolkan hadda Awdal aan joogno maanta si wanaagsan baa u socotaa. ammaankuna aad iyo aad buu sugan yahay, wax dhibaatana ma jiraan. waxaan filayaa in sida fiican ee inoogu bilaabatay in inoo dhamaato. hawshaas aad baa nagu socotaa in guul baa rajeenaya. Maxamed Xasan Ismaasha Biro wararka telefishinka Sahan magaalada Boorama.